Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa saaxiibkiina Cabdirasaaq. Kusoo dhawaada mar kale ee channelkeena Somali Bro. Asxaabay, sidaad videoga hordhiciisa aad kusoo aragteen, waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo barnaamij ku saabsan 3 application kuwaasoo muhiim u ah YouTube channelkaada. Waxaan ka hadlayaa dadka bilowga ah oo aan professionalka ahayn. haddaba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena. Lambarka koowaad, KineMaster. KineMaster waa barnaamij si free ah aad ugala soo degi karto Google Play Store-ka oo haba yaraatee aan kaaga baahnayn wax lacag ah. inkastoo uu wato midkaas watermark ama calaamad muujinayso in barnaamijkaas lagu suubiyey KineMaster. KineMaster waxa uu ku qabanayaa sida in aad wax ku editing garayso, sida muuqaal, maqal, sawiro iyo in aad gudihiisa wax ku dhex duubi karto. KineMaster waxaad ku dhex samayn kartaa video tayadiisa ay aad u wanaagsan tahay. inkastoo uu yahay barnaamij aad u yar, aanan gaaraynin barnaamijyada waaweyn, haddana waxaa la dhihi karaa waa barnaamij daahfur u ah video editingka lagu barto barnaamijyada waaweyn sida Sony Vegas, After Effects iyo kuwa la midka ah. Lambarka labaad waa YouTube Studio. YouTube Studio waa application loogu talagalay in lagu isticmaalo YouTube-ka. Faa'iidooyinka uu leeyahay channelkaada waxaa ka mid ah inaad ogaan karto dhaqdhaqaaqa channelkaaga, sida subscribe-ka, dadka ku ah iyo wadamada ay joogaan, dadka kugu xiran, cidda ay yihiin, lab iyo dhedig, sida inaad beddesho thumbnail-ka, inaad u sameyso ciwaan videogaada, iyo inaad ku darsato tags, iyo inaad ka falceliso kommentiyada dadka ay ku soo qorayaan. YouTube Studio gebi ahaanba waxaad la socon kartaa channelkaada dhaqdhaqaaqiisa. wuxuu ku qabanayaa inta iyo in ka badanba waad ka heli kartaa YouTube Studio. Lambarka saddexaad waa application-ka lagu magacaabo PixArt. PixArt waa tafatire si fudud loogu adeegsan karo taleefankaada, ha ahaado iOS ama Android. waxa uu leeyahay effect cajiib ah kaasoo kuu ogolaanaya inaad u isticmaali karto sawirada taleefankaada gudihiisa ku dhex jira. sidoo kale waxaad appkan ku adeegsan kartaa in aad ku beddesho background-ka sawiradaada. sidoo kale appkan waxyaabuhu leeyahay waxaa ka mid ah sida in aad ku sameysan karto logo ama astaan aad u adeegsato YouTube channelkaada. intaas iyo in ka badanba appkan waa uu leeyahay. intaasaan kusoo gabagabeynayaa videoga. intaan video kan oo kale anigu weli ku mid doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.